حربنا وعدي يورتع ما أنتيتو نيكل الجالة أن الله ظلنا متصف الطريق موال حب اللي يرادو أسمو إنه ماذا تعايش سلمي أنو سماينو سيد عالم قد لبومونه حتى كون علبال شغال حتى حصل شيخ معيري الصومالي أو هشيسة محل هذا عالم كل إسلام الصومالي ذو روات يا مركا حربنا عدي يورتع مش مانتي إلهي سبحانه وتعالى قال هذا قايء روان وشيء دقالك ويمالوا لي مسلمين تنا قايد ومالي لهذا لو هذا قايلين كل ملهاي أو سكين رجال ما لقى ربع نيجا بركة إيمان كرتين لبلا waafayeenka dagaalyahanada al-shabaab waxa uu ka hadlayaa dagaalada ka socda gobolada dalka Soomaaliya ee u dhaxeeya iyaga iyo ciidamada dawladda oo garab ka helaya dadka deegaanka waxa uu na dalbaday in wada hadal laga furo dagaalka haatan socda hadaba si aan kula wadaago warbixintan fadlan haddii ay tahay markaagii kugu horeysay oo aad halkan soo booqatay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto oo aad page-ka like iyo follow aad soo dhahdo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka iyo dibadda aynu halkan soo gelino. dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ayaana markii ugu horeysay dalabkan hawada u soo mariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna ka dalbadeen in meel dhexe la isugu yimaado oo wada hadal ay yeeshaan si xal looga gaaro dagaalka socda ka oo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. tani markii uu bilowday howlgalka lagula dagaalamaya al-shabaab ayaa waxaa lagala wareegay deegaano dhowr ah oo gobolada dalka Soomaaliya oo ay in muddo ay maamulayeen iyadoo sidoo kale la saaray culays kale oo ku aadan dagaalka isla markaana haatan uu socdo guluf xooggan oo ka dhan ah dagaalyahanada al-shabaab oo dhinac walba ay dawladda kula dagaalamayso. dawladda Soomaaliya ayaana joojisay inta badan dhaqaalihii ay heli jireen kooxdan waxaana haatan jira culays xooggan oo ay ku furan kooxda al-shabaab. sidoo kale haatan al-shabaab ayaana xayiraado ku soo rogay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud. afayeenka ciidamada militariga ee Soomaaliya Sareeye Guud Cabdullaahi Cali Caanood ayaana dhowaan sheegay in al-shabaab ay magaalooyinka ay ka jiraan isgaarsiinta iyo biyaha marka ay ka soo baxayaan hase yeeshee waxa uu sheegay in adeegyadaasi markiiba dib loogu soo celiyo deegaanadaasi waxa uuna sheegay inay diyaar u yihiin in deegaanada ay kala wareegaan al-shabaab ay helaan dhammaan isgaarsiinta biyaha wax godoominan uusan ku imaanin deegaanada ay gacanta ku dhigaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. al-shabaab ayaana haatan u muuqda kuwa looga awood roonaaday dalka isla markaana waqtigooda uu sii dhamaanayo.